inta waxa la yaab kale waxa waaye sababta maalin axad ah oo dadkii Soomaalida oo dibadaha jooga ay nasiino ku jiraan oo guryahooda wada joogaan in lagu soo aadiyo in guryaha loo soo galiyo kartoon nabiga kaleey salaatu wasalaam wax ka sheegaya runtii waa arrin dhaawac ah oo aan isleeyahay in xataa ay xaq u yeelan karaan in haday jiraan dad loo dacwoon karo oo diimaha difaaca oo nabiyada iyo ilaahay qaladka cid ka gasha maxkamad lagu saari karo ay jid karta xataa inay xaq u leeyihiin waxaana rumaysanahay Universal si ay u haysato dadkii ay maxaan ku dhahay dhageystayaasha ahaa inay marto jid cad oo ay ku cudur daaranayso aniga TV ban ka shaqeeyaa marnaba suuragal ma aha in la soo daayo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam iyo nabi ciise iyo anbiyada kaleba wax lagu dhaleecaynaa in la soo daayo ethics-ka qaanuunkuna ma ogola shariicaduna ma ogola ethics-ka shaqadana ma ogola adoo fahad ahaan ma daawatay warbixinta telefishinka Universal ee arinta ku saabsan aniga shakhsiyan ma daawanin laakiin ayaga laftigoodii baa qirsan dadkii oo dhan baa telefoon ay soo diraayo aniga ay weydiinayay isla saacadii warka uu baxay waxaan la hadlay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo soo daayay saaka waxaan dhageystay waraysiga ay soo qaadeen background TV-na waa ka shaqeeyaa oo waxaan fahmi karaa khalada aniga shayga aan marnaba la aqbali karin waxa waaye warbixin baa South Africa laga soo diray isla markiiba hawada la geliyay taasoo ku tusinaysa in qof mas'uul ah oo ilaalinaya inuusan meeshii joogin annagu kuma diidano Universal editorialkeeda siyaasadeed ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya ee ku saabsan waxyaabaha kale laakiin markay wuxuu diin timaado waxay u baahan tahay hadii lagu khaldamay in laga cudur daarto marka maxaa la gudboon hadda maamulka telefishinka si qaladkaas dhacay loo saxo waxay aniga ila tahay talaabada koowaad inay ka cudur daartaan khaladka ay sameeyeen talaabada ku xigta in ay muujiyaan in aysan wax dana oo gaar ah oo ay kala hayeen in aysan jirin sababtoo anu waxaan kamid ah dadka isweydiinaya maxaa maalin axada loogu soo aadiyay maxaa loo soo daayay maxaa hadana maamulka uu dhagan yahay waxaas oo dhan waxay keeni karaan tuhun ah in waxaan si ula kac ah uu TV-ga u sameeyay sababtoo ah hadii dad muslimiin oo Soomaali ay yihiin khaladna ay galeen waxa waajib ku ah inay ka cudur daartaan dadka Soomaaliga agaasimuhu sheegayba khayr badan inay ka shaqeeyaan masaajid badan ay lacag u ururiyaan telefishinka Soomaalida iyo danaheeda uu shaqeynayay ixtiraamna ay ka helayeen waxyaabahaas oo dhan uu muujinaya wuxuu leeyahay qalad dhacay in loo fiiriyo ma ahayn war sida u eg ayuu waraysiga BBC-da uu siiyay oo ka muujiyay sidoo aragtaa taas sida aniga aan fahamsanahay waxa waaye warbaahinta waa weyn ee dunida ka jirta hadii wariyaheedu uu khalad ku saabsan shaqada uu galo waa in hay'addu ay soo istaagtaa oo wariyahaas sheegtaa wixii ay ku ciqaabi lahayd ama ay sheegtaa wixii ayadu ay isku ciqaabi lahayd laakiin TV-gu ilaa hadda ma sheegin xataa inuu khalad galay ma sheegin wariyihii soo diray talaabada ay ka qaadayaan ma aysan sheegin ninkii editorialka qaabilsanaa ee markaa xafiiska joogay talaabada ay ka qaadayaan waxaas oo dhan waxay ku tusinaysaa in TV-gan uu sameeyay wax aysan caalamka aan ka dhicin oo TV-yada ay reer galbeedku leeyihiin ugu waaweyn ay ka xishoodeen inay dhaawacaan dadka muslimiinta shucuurkooda waxaan u haystaa in dadka diinta islaamka aqoontan u leh inay arrintan ka hadlaan culimada muslimiinta arrintan ay ka hadlaan la muujiyo siday ku dhici kartaa in hanti Soomaaliyeed ay ku jirto haddana diinta islaamka waxyaalo intaa la eg uu TV ku sameyn karo maxaa ku kalifay baa islada inay talaabada qaadaan adiga hadii aad eegtay warka uu jeediyay agaasimo laba arrimood mid bay noqon kartaa inay jaahil ka yihiin waxay ku sameeyeen oo aysan garanaynin khaladka ay sameeyeen inta uu leeyahay ama waxay noqon kartaa inay ula kac sameeyeen aniga waxyaabahan isweydiinay waxa waaye dhacdadan intaas ay dhacayeen South Africa journalkeeda waxa lagu soo daabacay dhowr bilood ka hor way hadda loogu soo aadinaya maalin axada ayadoo hadda dadkii muslimiinta ay ka cabanayaan in xuquuqdoodii ka maqan tahay laakiin waxa loogu soo aadiyay waa cabashada ayaa la report gareynayay oo la tabinayay oo muslimiinta Koonfur Afrika ay ka cabanayaan Yusuf shaqada adiga laftiisa aad baa u taqaanaa waxay u baahan tahay waxa waaye in ka cabashada laga hadlo laakiin hadii adiga aad wariyihii uu soo sawiro joornaalkii nabiga kaleey salaatu wasalaam wax ka sheegay joornaalkii waxa lagu haystay iyo waxa Universal sameeyay waa isku mid maanta aniga hadaan ay qof Soomaaliya oo wariye ah waxaan dareemayaa kartoonkii iyo joornaalkii Denmark ku daabacay iyo Universal inay isku mid yihiin wax farqi u dhaxeeya aysan jirin laakiin waxay ahayd ninka wariyaha oo soo diray oo marka hore ka gooyo waxay ahayd Universal inay ka gooyso haddii khaladkii uu dhacana ay khaladkii ka cudur daarteen waxa aniga ilaa hadda aan la yaabanahay waxa waaye inaysan ka cudur daaranaynin oo aysan si cad u dhahaynin ceebna ma ahan qofku waa khaldama laakiin inay qoor dhiibtaan oo dadka u qoor dhiibtaan ay dadka mashaa'irta muslimiinta ilaaliyaan TV-ga Universal wuxuu soo daayay wax aad looga naxo oo dadku ay aad u dhibsadaan
shaqada wariyanimana khilaafsan oo ka soo horjeeda waxa waaye inay soo daayeen kartoono la sameeyey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wax looga sheegayay haddii aan in yar waxyarka dhulka ka fahamsiiyo waxa waaye waa dhibaato bilaabatay 2006 oo nin artista ah oo karikatoonka sameeya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegay waxa yaab kale waxa waaye xilligaas ilaa hadeertaan ma dhicin TV dunida ka shaqeeya oo soo daayay sawirkaas ama dad muslimiin ah iska lahaadaan ama dad kale ha iska lahaadaan ma waxa wadaa yani kartoonkii oo sidiisii iyo caadi iyo sidoo ahaa cid soo bandhigtay ma jirto miyaad leedahay ama telefishin siduu uu ahaa u soo bandhigay totally ma jirto dhib ka dhacayna waxa waaye Universal waxa laga rabay haddii ay soo daynayaan dadka muslimiinta ee South Africa ku nool inay dhibsadeen inay intaa ku ekaadaan laakiin TV ahaan aysan zoom garaynin oo aysan si toos ah ugu qabanin sawirkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax looga sheegay arintaasoo shaqadana dhibaysa islaamnimada dadkana dhibaysa dhaawac iyo dharbaaxana ku leh waxa intaa ka sii darana waxa waaye markii ay soo daayeen anuu markiiba waan ogaaday Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ahaa wariyihii soo daynayay waan telefoon u diray macnaha xiriiriyaha ahaa waxaan ka codsaday oo u sharxay wixii dhacay waxaan ka codsaday inay ka cudur daartaan TV uu ku soo noqday uu ka cudur daartay laakiin waxaan naxdin noqotay in BBC ee qayb Soomaaliga markii ay wareysatay ninkii mas'uulka ahaa oo Mareykan joogay oo TV-ga mas'uuliyiinteeda ku jiray inuu u arkay inuu xaq u leeyahay inuu sii daayo in uu san muujinin inuu khalad weyn ay ku dhaceen taasoo damiirka qofka muslimka taabanaysa waxa yaab kale Yusuf waxa waaye dawladda Pakistan waxay wadankeeda ka mamnuucday Facebook waxayna uga mamnuucday kartoonadaas oo la soo geliyay bogga Facebook sidee ku dhici kartaa warbaahin dad Soomaaliya oo muslimiin iska leeyihiin oo waliba dadka Soomaalida oo muslimiinta ay xayeysiin ku sameystaan oo hantidoodii ay geliyeen in haddana dhaawac lagu sameeyo damiirkii qofka muslimka ah shaqadana ka soo horjeeda akhlaaqda qofka muslimka ka soo horjeeda laakiin sida aad maqlaysay waraysigii BBC la yeelatay agaasimaha telefishinka Universal waxa uu sheegay in warku si oo degdega oo ahaa Ridwaanna uu xiriirinayay gabagabadiina wariyihii Koonfur Afrika uga soo dirayay arrinta uu ku gabagabeeyay in masawirka lagu qabtay kartoonkii laakiin waxa dhanba uu ku salaysnaa cambaareynayay marka arrintaasi miyaynan sharaxaad ka bixinayn inayna ujeedo xun aynan u soconin maamulka telefishinka uguna talagelin in arrintaasi la dhibsado aniga Yusuf waxa ay muuqata in ay saa ka duwan tahay haddii ay khaldameen way ka cudur daaran lahaayeen sida Ridwaan Xaaji Cabdiwali uu cudur daartay waxay muujin lahaayeen inay khaldameen oo khalad sameeyeen laakiin taa may dhicin way ku sii adkaysanayaan markay hadlayeen intaa waxa la yaab kale waxa waaye sababta maalin axad ah oo dadkii Soomaalida oo dibadaha jooga ay masiino ku jiraan oo guryahooda wada joogaan in lagu soo aadiyo in guryaha loo soo geliyo kartoon nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegaya runtii waa arrin dhaawac ah oo aan isleeyahay in xataa ay xaq u yeelan karaan in haddii jiraan dad loo dacwoon karo oo diimaha difaaca oo nabiyada iyo ilaahay qaladka ciddi ka gasha maxkamad lagu saari karo ay jid karta xataa inay xaq u leeyihiin waxaana rumaysanahay Universal si ay u haysato dadkii ay maxaan ku dhahay dhageystayaasha ahaa inay marto jid cad oo ay ku cudur daaranayso aniga TV baan ka shaqeeyaa marnaba suuragal ma aha in la soo daayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nabi ciise iyo ambiyada kaleba wax lagu dhaleecaynayo in la soo daayo ethics-ka qaanuunkuna ma ogola shareecaduna ma ogola ethics-ka shaqadana ma ogola aduu fahad ahaan ma daawatay warbixinta telefishinka Universal ee arrinta ku saabsan aniga shakhsiyan ma daawanin laakiin ayaga laftigoodii baa qirsan dadkii oo dhan baa telefoon ii soo diray oo aniga weydiinayay isla saacadii warka u baxay waxaan la hadlay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo soo daayay saaka waxaan dhageystay waraysiga ay soo qaadeen background TV-na waa ka shaqeeyaa oo waxaan fahmi karaa khalada aniga shayga aan marnaba la aqbali karin waxa waaye warbixin baa South Africa laga soo diray isla markiiba hawada la geliyay taasoo ku tusinaysa in qof mas'uul ah oo ilaalinaya inuusan meeshii joogin annagu kuma diidano Universal editorialkeeda siyaasadeed ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya ee ku saabsan waxyaabaha kale laakiin markay wuxuu diin timaado waxay u baahan tahay haddii lagu khaldamay in laga cudur daarto marka maxaa la gudboon hadda maamulka telefishinka si qaladkaas dhacay loo saxo waxay aniga ila tahay tallaabada koowaad inay ka cudur daartaan khaladka ay sameeyeen tallaabada ku xigta in ay muujiyaan in aysan wax dana oo gaara oo ay kala hayeen in aysan jirin sababtoo anigu waxaan ka mid ah dadka isweydiinaya maxaa maalin axada loogu soo aadiyey maxaa loo soo daayay maxaa haddana maamulka ugu dhagan yahay waxaasoo dhan waxay keeni karaan tuhun ah in waxaan si ula kac ah uu TV-ga u sameeyey sababtoo ah haddii dad muslimiina oo Soomaali ay yihiin khaladna ay galeen waxa waajib ku ah inay ka cudur daartaan dadka sida agaasimuhu sheegayba khayr badan inay ka shaqeeyeen
masaajida badan ay lacag u ururiyeen, telefishinka soomaalida iyo danaheeda uu u shaqaynayey, ixtiraamna ay ka helayeen. waxyaabahaas oo dhan uu muujinaya wuxuu leeyahay qalad dhacay in loo fiiriyo ma ahayn war sida u eg ayuu waraysiga BBC-da uu siiyey ka muujiyey. sidaad u aragtaa taas? sida aniga aan fahamsiisanahay waxa waaye warbaahinta waaweyn ee dunida ka jirta haddii wariyaheedu uu khalad ku saabsan shaqada uu galo waa in hay-addu ay soo istaagtaa oo ay wariyahaas sheegtaa wixii ay ku ciqaabi lahayd ama ay sheegtaa wixii iyadu ay isku ciqaabi lahayd. laakiin TV-gu ilaa hadda ma sheegin xataa inuu khalad galay, ma sheegin wariyihii soo diray tallaabada ay ka qaadayaan, ma aysan sheegin ninkii editorialka qaabilsanaa ee markaa xafiiska joogay tallaabada ay ka qaadayaan. waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa in TV-gan uu sameeyey wax aysan caalamka aan ka dhicin oo TV-yada ay reer galbeedku leeyihiin ugu waaweyn ay ka xishoodeen inay dhaawacaan dadka muslimiinta shucuurkooda. waxaan u haystaa in dadka diinta islaamka aqoontana u leh inay arrintan ka hadlaan, culammada muslimiinta arrintan ay ka hadlaan, la muujiyo siday ku dhici kartaa in hanti Soomaaliyeed ay ku jirto haddana diinta islaamka waxyaalo intaa la eg uu TV ku samayn karo. maxaa ku kallifay baa isleedahay inay tallaabada qaadaan adiga haddii aad eegtay warka uu jeediyey agaasimuhu? laba arrimood mid bay noqon kartaa inay jaahil ka yihiin waxay ku sameeyeen oo aysan garanaynin khaladka ay sameeyeen inta uu la egyahay, ama waxay noqon kartaa inay ulakac u sameeyeen. aniga waxyaabahan isweydiinaya waxa waaye dhacdadan intaasay dhacayeen South Africa journaalkeeda waxaa lagu soo daabacay dhowr bilood ka hor, waay hadda loogu soo aadinayaa maalin axadda iyadoo hadda dadkii muslimiinta ay ka cabanayaan inay xuquuqdoodii ka maqan tahay. laakiin waxaa loogu soo aadiyey waa cabashada ayaa la ribood garaynayay oo la tabinayay oo muslimiinta koonfur Africa ay ka cabanayaan. Yuusuf, shaqada adiga la siiyay aad baa u taqaanaa, waxay u baahan tahay waxa waaye in ka cabashada laga hadlo. laakiin haddii adiga wariyihii uu soo sawiro joornaalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegay, joornaalkii waxa lagu haystay iyo waxa Universal samaysa waa isku mid. maanta aniga haddaan ahay qof Soomaaliya oo wariye ah waxaan dareemayaa kartoonkii iyo joornaalkii Denmark ku daabacay iyo Universal inay isku mid yihiin, wax farqi u dhaxeeya aysan jirin. laakiin waxay ahayd in ninka wariyaha oo soo diray uu marka hore ka gooyo, waxay ahayd Universal inay ka goyso. haddii khaladkii uu dhacana ay khaladkii ka cudur daarteen. waxa aniga ilaa hadda aan la yaabanahay waxa waaye inaysan ka cudur daaranaynin oo aysan si cad u dhahaynin. ceebna ma ahan qofku waa khaldamaa, laakiin inay qoor dhiibtaan oo dadka u qoor dhiibtaan ay dadka mashaacirta muslimiinta ilaaliyaan.